Tunisia ama Jamhuuriyadda Tunisia waa mid ka mid ah dalalka dhaca waqooyiga Afrika isla markaana ku fadhiya taariikh aad u weyn. Waa dalka xorriyadda isla markaana horseeday kacdoonkii la magac baxay Guga Carbeed kaasoo sababsaday xukunkana ka tuuray madax muddo qasriyada laga soo saari waayay. Waxaana ku soo laabanay qaaradeena Afrika oo ay muddo inoogu dambeysay. Waxaana ku soo dhawaataan xaqiiqooyin ku saabsan dalka Tunisia. waa dal dhaca waqooyiga Afrika waxaana waqooyiga bari ka xigta badda Mediterranean-ka. Koonfurta barina waxaa kaga beegan Liibiya halka galbeedkana uu ka xigo dalka ugu weyn Afrika ee Algeria. Bedka uu ku fadhiyo waa wax ka badan 160,000 kiiloomitir isku wareega. Wuxuuna sidaasi ku noqday dalka 91aad ee ugu dhulka weyn caalamka. Dhulka dalkan gaar ahaan magaalada Safakish waxaa laga helaa beerta ugu weyn caalamka ee uu ka baxo geedka saytuunka. Dhulka ku wanaagsan beerashada ee dalkan 30% waxaa ku beeran geedka saytuunka. Wax soo saarka dalkan ee dhanka beerahana 50% waa saytuunka. Midaas ayaana u sahashay Tunisia inay ka mid noqoto 5 dal ee saliidda saytuunka ugu badan dhoofiya. Waxaana xusid mudan inay 2015 Tunis noqotay dalka koowaad. Tirada dadka dalkan waa in ku dhow 12 milyan. Diinta ay haystaan waa Islaam. waxaana jiraan doodo badan oo ku hareeraysan halka ay asal ahaan ka soo jeedaan dadka reer Tunis, sida inay Amaaziq, Arab, European, Germanic ama inay yihiin reer Andalus. Waxaana sidoo kale jirta dood daciif ah oo sheegaysa inay asal ahaan yihiin dadka Turkida, balse sida shaacsan waa inay 98% yihiin Arab iyo Amaaziq isku jirta, halka 1% lagu sheego inay yihiin dad European ah. dadka dalkan waxay ku hadlaan lahjad adag oo aysan fahmi karin xitaa kuwa la deriska ah iyo guud ahaan dadka Carabta. Waxay ka kooban tahay 5 luuqadood oo kala duwan oo kala ah Faransiis, Carabi, Amaaziq, Turkish iyo Talyaani. laakiin luuqadda rasmiga ah ee dalkan waa Carabi. waxaana jiraan dad badan oo si wanaagsan ugu hadli kara luuqadda Faransiiska. waxaa la sheegaa in magaca dalkan uu ka yimid caasimadda dalkan ee Tunis. waa magaalada ugu weyn dalka oo waxaa ku nool dad gaaraya 600,000. waxay dhacdaa dhanka waqooyi ee xeebta ah waxayna u qaybsantaa 2 qaybood oo kala ah qayb qadiim ah oo taariikhi ka muuqato iyo qayb casri ah oo muuqaalkeedu cusub yahay. waana xarunta ganacsi ee dalkan waxayna ka mid noqotay 2017 liiska magaalooyinka hal-abuurka la yimid ee UNESCO. sida taariikhda ku xusan waxaa dalkan qabsadeen awoodo kala duwan, waxaana u dambeeyay gumaystihii Faransiiska oo dalkan haystay intii u dhaxaysay 1881 ilaa 1956. kadib markii uu gumaystihii Faransiiska isaga baxayna dalkan waxaa la aasaasay Jamhuuriyadda Tunisia, waxaana madaxweynihii ugu horeeyay ee dalkan noqday Habib Bourguiba. laakiin dalkan waxaa ka ariminayay 1987 ilaa 2011 madaxweynihii Tunis Zayn al-Abidin bin Ali oo geeriyooday 19 September ee sanadkan sii dhamaanaya. waana madaxweynaha uu markii ugu horeysay ka agdilaacay kacdoonkii Guga Carbeed ee bilowday dabayaaqadii sanadkii 2010. kacdoonka xilka looga tuuray Zayn al-Abidin ayaa yimid kadib markii uu dab isqabadsiiyay wiil dhalinyaro ah oo miis yar ku iibsanayay qudaar, wuxuuna dabka isqabadsiiyay kadib markii uu cadaadis kala kulmay dawladda. ficilkiisan ayaana shiday dab ay ku gubteen madax badan oo Carbeed oo kursiga ku dulgaboobeen. Tunis waxaa lagu tilmaamaa dalka xorriyadda iyo dimuqraadiyadda marka la eego dalalka Carbeed. shacabka dalkan waxay bishii Oktoobar ee sanadkan jagada madaxweynenimada dalka u doorteen Qays Saciid oo ah macallin ku adag diinta isla markaana aan garab ka haysan xisbi siyaasadeed iyo shisheeye toona. wuxuuna sheegay xitaa inuusan haysan baasaboor uu dalka kaga baxo. 90% dadka doortay waxay da'doodu u dhaxaysay 18 ilaa 25 sano. waana dhalinyaro doonaysay inay gurtaan miraha kacdoonkii ay bilaabeen ee xitaa gilgilay qasriyada Carbeed. Qays Saciid waa professor sharciga bartay, asigoo aan xisbi siyaasadeed ka tirsaneyn ayuuna ka guuleystay maalqabeenka caanka ah ee Nabil al-Qarawi. inta uu socday ololaha doorasho, Qays Saciid ma uusan ahayn mid qabta shirar, balse wuxuu booqday 100 magaalo, asigoona si kafool ula kulmay shacabkii u badnaa dhalinyarada ee shaqo la'aanta ka cabanayeen. qarashka ugu badan uu Professor Qays Saciid uu doorashada ku galayna waxaa iska aruuriyeen shacabka. nidaamka Tunisia waa mid ka madax bannaan diinta, dadkuna sida galbeedka ayay wax badan oo diinta Islaamka ogoleen xor u yihiin. Qays Saciid wuxuu aaminsan yahay ragga iyo dumarka inaysan dhaxal isku mid ah qaadan karin, isla markaana la soo celiyo ciqaabta dilka ee laga mamnuucay Tunis
sanadkii 1994 waxaana xusid mudan in bishii Luulyo ee sanadkan in xafiisyada dawladda ee dalkan laga mamnuucay niqaabka ama indha shareerka. amarkan ayaana soo baxay kadib markii toddobaad gudihiisa ay 3 weerar oo ismiidaaminah ka dhaceen magaalada caasimadda ee Tunis. Tunis waxaa laga helaa masraxa labaad ee ugu weyn caalamka, waxaana lagu magacaabaa Elshim, waxaana ka weyn oo kaliya Colosseum-ka Roma. waxaana la sheegaa in Tunis tahay dalkii ugu horeeyay ee Carbeed ee adeegsaday internetka, kolkaasina waxay ahayd 1991. dawladda labaad ee ku soo xigta Tunis waa Kuwait oo adeegsatay 1992, waxaana Kuwait ayadana ku soo xigaan Imaaraadka iyo Masar oo adeegsadeen 1993. dalkan waxaa dhacda magaalo qadiim ah oo lagu magacaabo Al-Khirawan. waa magaalo kaalin weyn kaga jirta taariikhda Islaamka, waxayna sidoo kale kaalin weyn ku lahayd furashadii Islaamka sida furashadii Algeria iyo Morocco. sidoo kale waxay ka mid tahay magaalooyinkii ugu horeeyay ee ka aasaasmay waqooyiga Afrika. dhanka kale magaalada Qardaaj waxay ka mid tahay magaalooyinka qadiimka ah ee Tunis ku soo jiidato dalxiisayaasha, waxaana laga helaa raadad qadiim ah. laakiin dadka booqda Tunis intooda badan kama caajisaan inay tagaan jasiiradda Jarbah oo lagu naanayso jasiiradda riyada.